wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa deeq raashin waxa ay gaarsiisay ku dhawaad 2,000 oo qoys. Saada Sayid ayaa noo faafahinaysa qodobka. wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed ayaa deeq raashin ay gaarsiisay 2,000 oo qoys oo kamid ah kuwa sida aadka ay u saameysay abaarta ka jirta guud ahaan dalka Soomaaliya. agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka koonfur galbeed Soomaaliya Diini Cabdinuur Maxamed oo gudoomiyay deeqda raashinka ee ka timid boqortooyada Sacuudiga ayaa dawladda Soomaaliya iyo Sacuudiga uga mahadnaqay gargaarkan ay gaarsiiyeen deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. markastan wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka abila tirohayta sanadkun ha baraka ay oo meel raayis abaarta iyo oonki iyo meel raayis nabadgelyo xumida barakaeeda inuu la deersay marlamaad marsadad mahadnagaan hay'adda Sacuudiga ee meel raayis King Salman iyo hay'adda kale wadaniga oo fududayd ee Daamun iyada aan ka mahadsantiin hay'adda wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka marlamaad marsadad wali in ka mahadnagaase lan kasta oo wala deersay deegaanada koonfur galbeed iyo dadku barakayaasha iyo dadku abaarta barakaeeda wali lana runtii iyada aan ka mahadsantiin marlamaad marsadadna lama laaba gargaar ku yaro la deersay shiliday ka filan walasin ku adsadana in lama laabo la saddex jibaara waana mahadsantiin. Assalaamu calaykum.